fiirsano badeecada iyo productiga waxa leena for example oo kale bur baan gelinayna burka waxa leena for example oo kale burku waxa weeyaan cost ahaan ama saa ula socono suuq ahaan costigu waa $3 waa haduu $3 yahay qiimo intee leeg ba marka gelinayna anagu maxaa kasbisanay halkani waxa weeye halka laba midba waa taal kani waa costigi kana waa sales price adu waxa ku iibinayso for example waxa ku saarna for example $4 $1 baa inoo saaran sax halkan waxa weeye record bounty minimum iyo maximum waa ka tagi kadhaa laakiin halkan ugu muhiimsan oo waxa weeye inta badeecada ku taalo inventory ku yaal ma 100 xabaa ku yaal ma 1000 xabaa ku yaal ma 500 xabaa ku yaal intee item baa ku yaal for example kala waxa leenahay 100 baa inoo yaal 100 haduu inoo yaal waxa leenahay minimum intee ugu yar baa for example kala wuxuu leeyahay maximum iyo minimum waxa la yiraahdo marka ay kaasi dhamaan rabto 100 ka xabo oo burka ka 100 ka xabo oo kiishka oo burka rabo inuu ka dhamaado ku sheegay waxa leedahay for example kala 5 markuu gaaraan leedahay ii sheeg sidoo kale waxa leedahay ugu badnaan markuu 10 gaaro ii sheeg uu ku sheegaya markuu leeyahay 10 baa haduu soo gaaray 4 waxa way 9 6 7 ilaa uu 5 gaaro markasta uu ku sheegaya hadda halka waxa moodaa totalkii inuu halkaas isku dhufsaday oo waxa way total value gan xagee ka keenay total value wuxuu ka keenay cost of handing ama total in handing wixii aad haysay oo kunka xaba aha kunkan xabo waa tiradii meesha taalay oo waxa weeyaan 100 kiish aha 100 kiish buu wuxuu ku dhuftay costigii marka laga siinayo marka waa 2300 saas uu soo qoray marka asaga totalkiisa ay wixii isku dhufsaday sidoo kale halkan account waxa la yiraahdaa income account waa la yiraahdaa ama income account ugu waxaan galay for example kale account wuxuu galay sales asaga noo saaray salesna wuxuu yiri waa meeshii aan galin lahayn inta hadaan galino oo aan okay dhahno maxaanu ka filaynaa balance sheet keeni awal 00 buu noo ahaa kankii ka horreeyay waxaan soo dhignay bangiga sida waxa weeyaan company-ga loo abuuro kaliya maanta bangigeeni ama waxa weey reportigeeni waa isbedelaya balance sheet keeni laakiin kan aan isbedelan waa income statement oo wax ma aan soo gadan laakiin wax aan xarayn good hadii aan halkan waa okay iyo cancel iyo next intaba waa leeyahay marka okay waan iska leenahay si waxa weeyaan oo reportiga iyo balance sheet-ka intaan u aragno muxuu halka kugu soo qoray recurring transaction macnaha transaction baa dhacay si oo waa kana burkii description-kii waxa weey inventory party aad bay ka taalay salisahan loo gaday 100 xabo aan dhahay salisahan inuu u joogo meesha macnaha salisahan lagu iibinayo 100 xabo iyo 24 in la siin doono insha Allah marka waxaan tageynaa report-kan fiirinayna waxa weey company and finance baa tagaysaa kadib balance sheet-ka fiirinaysaa maxaa ku jira hanti ahaan lacag intee noogu jidha asad ahaan intee noo soo galay iyadana waa muhiim good Sultan Product Company balance sheet-keeni waa ka warqadda hantida miisaaniyadda as a February 5 2019 waa update waay halka waxa inoo ku qoran asset-keeni current asset-keeni waa ta asset-kii maalin soo sharaxnay asset-ka saddex waan u qaybinay current asset fixed asset iyo intangible asset-ka soo sheegnay current asset waxa la yiraahdaa for example oo kale waxa weeyaan waa badeecada marka ay sidoo kale inventory-ga wixii marka meesha yaal fixed asset maxaa dhigi karnaa waa waxa weeyaan waa landigi building-ki waxa weeye gaariga waxa weeye gawaarida ay shirkadu ku shaqeynaysay dhismihii haday deganeed meelaha ay ku ganacsanaysay dhulka ay deganeed waxaas oo dhan waxa la yiraahdaa fixed asset way intangible asset kana waa soo sheegnay inta badan Soomaalidu ma isticmaasho intangible asset ka waxa la yiraahdaa waxyaalaha sumcadda shirkadda oo kale markay for example oo kale sumcaddu kacdo oo kale ama shirkaddu kacdo company-ga intangible asset ka waxa la yiraahdaa marka wixii lagu gadi karo qiimaha intay leeg tahay code of conduct-ga ay haysato negotiationska lowgeeda qiimaha intay leeg ku fadhido waxyaalaha waxa way positionada ay degan tahay waxaas oo dhan intangible asset baa marka qaybtood intangible asset ku wuxuu ka lacag badnaan karaa current asset iyo fixed asset waa ka lacag badnaan karaa marka muhiimadu ma aha inventory asset keeni maanta waa 2300 oo u jeednaa current asset keeni total asset keenina 2300 kaas aan uga jeednaa liability equity maanta liability meeshan oo ma yaal oo maanta deyn ma haysano laakiin equity waa noo yaal equity waa dadka la dhihi karo waa capital start of the business of the use waa dadka ugu horeeya ama waa dadka ku furay businesska ganacsigooda lacagtooda ku furay baa la yiraahdaa equity marka account buu noo furo leeyahay opening balance of the equity 2300 sida caadada inoo hanjin assetku wuxuu noo leeyahay liability plus equity noo leeyahay sida uu jeedno total liability iyo total equity 2300 2300 halka waxaan uga jeednaa xisaabteen inay balance tahay aanu la socono for example oo kale meelahan oo kale waxa la yiraahdaa customized report marka aad diyaarinayso inaad u didho
haddii kale comment of the report haddaa iyadana diyaarto minimization, haddaad rabto printer inaad waxaan kusoo saarno, haddaad rabto qof inaad email ugu didho, haddaad rabto inaad excel ku habayso, haddaad rabto hider intaad saarto inaad collapse ku samayso, kana waa collapsankii. Marka waa wax iska easy aad inta badan fahmi kardho. Sidoo kale reportkaan tagaynaa, reportka markaa tagna waxaan fiirinaa company and finance, kadib waxaan tagaynaa profit and losskii. Wax isbedel ma dhacay, haddaa wataan isbedel ma dhacay, hadduu isbedel dhacayna waa fiirinayna, haddii kale maya. Go wax isbedel muusan dhicin, nantinkamkeen waa 0 oo waayo dee anagu wax maanan iibinay, waxbaanu xaraynay keliya. Inventory party baanu xaraynaye macana waxba ma soo iibin, waxna ma soo gadin, waxna ma sii iibin anagu, laakiin inventory party-geeni baanu soo gadnay, inventory party-geeni ba meesha ku xaraynay. Markaas waa ujeednaa hadda casharkeena halkaasuu inoo maraya hadduu alla idmo insha allah. Waxaa la rabaa waxa weeyaan inaad la socoto meelaha ay wax marayaan, sida wax loo analyse garaynayo, sida waxa weeyaan qaabka loo analyse gareeyo. casharkeena labaad baan inoo ku xigi